kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada muuqaal cusub. waxaynu muuqaalkan maanta ku soo qaadanaynaa guushii uu gaaray xulkeena qaranka Soomaaliya, wadada ay wiilasha Ocean Stars u marayaan usoo bixitaanka koobka adduunyada ee lagu qabanayo Qatar kadib guushii ay ka gaareen wadanka Zimbabwe. xulka qarankeena Soomaaliya ayaa guul weyn ka gaaray dhigooda Zimbabwe oo ay ku garaaceen gool iyo eber lugta hore ee is-aragga koowaad ee isreebreebka koobka adduunyada, iyadoo xidigaha Ocean Stars ay 10-1 u dhigeen dhigooda Zimbabwe oo dhanka qiimeynta FIFA Soomaaliya ka sareeya 90 boos. xulka qaranka Soomaaliya ayaa ciyaarta bilowgeeda ilaa dhamaadkeeda wacdara ka dhigay garoonka oo kulankaasi ku qabsoomay ee El Hadji Hassan Guuleed Abtidoon ee dhaca magaalada Djibouti, caasimadda wadanka Djibouti. waxaana qaybta hore iyo qaybta labaadba wiilasha xulka qaranka Soomaaliya ay soo bandhigeen ciyaartiyadeedu ay aad u heer sareyso. xulka qarankeena Soomaaliya ayaa helay fursado aad u fara badan labadii qaybood ee ciyaarta, balse kama aysan wada faa'iideysan, iyagoo helay goolka ay guusha ku qaateen dhamaadkii ciyaarta kulankii ka dhacay magaalada Djibouti oo ay hoy ahaan ama home ahaan ugu ciyaarayaan wiilasheena Ocean Stars. xulka qaranka Soomaaliya ayaa kubado baas iyo weerar lehba soo bandhigay ciyaartaasi, iyagoo xakameynta ciyaarta ka haystay xulka Zimbabwe oo u soo baxay koobkii ugu dambeeyay ee qaramada qaaradda Afrika. xulkeena Soomaaliya ayaa goolka guusha helay kadib kubad rogaal celis ahayd ama dabamareyn ahayd oo ay ku soo qaadeen shabaqa xulka qaranka Zimbabwe dhamaadkii ciyaarta, iyadoo goolhaye Axmed uu fursad weyn ka beeniyay wiilasha Zimbabwe, laakiin daqiiqadii ku xigtay waxay wiilasheena Soomaaliya dhaliyeen goolka ay guusha ku qaateen iyagoo ugu shubay shabaqa xulka Zimbabwe. kubadaas oo ahayd mid baas ku dhisan isla markaana garab laga soo karoosay, waxaana markaa geesiga kulankani uu ahaa goolka guushana madaxa ku dhaliyay Anwar Said Ali Shakunda. Somalia with the cross here. There's the header. Oh, I don't believe it. I don't believe it. Somalia have found the back of the net. That is quite incredible. But the ball's come out of the net, but they found. waa guushii ugu horeysay ee ay Soomaaliya ka gaarto kulan isreebreeb ah tan iyo guushii ay ka gaareen Kenya isreebreebka koobka qaramada qaaradda Afrika sanadkii 1984. waana guushii ugu horeysay ee abid ay gaaraan ee isreebreebka koobka adduunka. waana guushii ugu horeysay oo ay gaaraan tan iyo bishii Janaayo sanadkii 2009. wiilasha Ocean Stars ayaa tilaabo weyn u qaaday inay hore ugu sii socdaan isreebreebka koobka adduunyada ee lagu qabanayo wadanka Qatar sanadka 2022, iyagoo wiilasheenu ay u baahan yihiin inay xaqiijiyaan guusha kulanka labaad. sida qorshuhu ahaa, kulanka lugta labaad ayay xulkeena Soomaaliya booqan lahaayeen magaalada Bulawayo ee dalka Zimbabwe maalinta Sabtida ah ee 7 bisha September, laakiin waxaa soo baxaya warar sheegaya in ciyaartaas dib loo dhigay, kulanka lugta labaadna la ciyaari doono 10 bisha September laguna dheeli doono caasimadda dalka Zimbabwe ee Harare. xulalka Soomaaliya iyo Zimbabwe ayaa ku jira horudhaca isreebreebka koobka adduunyada ee wadamada Afrika, waxaana Soomaaliya ay rajo weyn ka qabtaa inay ka soo gudbi karto xulka Zimbabwe ee lagu naanayso The Warriors, maadaama ay lugtii hore oo ka dhacday gurigooda ay guul weyn ka gaareen. haddaba markan aynu eegno wadada uu xulkeena qaranka Soomaaliya u marayo usoo bixitaanka koobka adduunyada kadib guushii ay ka gaareen dhigooda Zimbabwe. xulkeena qaranka Soomaaliya ayaa tallaabo weyn u qaaday inay u soo gudbaan is-aragga labaad ee isreebreebka koobka adduunyada kadib markii ay lugtii hore ee isreebreebka wajiga hore ee koobka adduunyada ay gool iyo eber ku dhufteen xulka Zimbabwe ciyaar ka dhacday guriga Soomaaliya ay ku ciyaareyso ee Djibouti, maadaama weli magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya aysan ciyaaro caalami ah martigelin karin. lugta labaad waxaa markaa sida qorshuhu yahay la ciyaarayaa 10 bisha September, waxaana lagu dheeli doonaa wadanka Zimbabwe. haddii ay Soomaaliya kulankaasi badisa ama ay barbara gashana waxay u soo gudbi doonaan is-aragga labaad ee isreebreebka koobka adduunyada. is-aragga hore oo ay haatan xulka qaranka Soomaaliya ciyaareyso waa mid u dhaxeeya 28 xul ee ugu qiimaha hooseeya xulalka qaaradda Afrika, kuwaasoo ciyaaraya 14 kulan oo minan iyo marti ah ama home iyo away ah. xulka qaranka Soomaaliya waxa uu qarka u saaran yahay inuu ka qayb qaato 14 xul ee u soo gudbaya wareegga labaad ee isreebreebka koobka adduunyada ee xulalka Afrika. haddaba aan diiradda saarno waxa uu yahay wareegga labaad ee isreebreebka koobka adduunyada.
wareegga labaad waxa uu ka koobnaan doonaa 26 xul ee ugu qiimaha sarreeya xulalka Afrika iyo 14 xul ee kasoo gudbay is-aragga hore ee isreebreebka koobka adduunyada. 40 xul ayaa loo kala qaybin doonaa 10 gruub ama 10 qaybood oo min 4 kooxood ah. gruub walba ama qayb walba waxaa kasoo bixi doona hal xul oo u gudbi doona wareegga saddexaad ee isreebreebka koobka adduunka ee xulalka Afrika. 10 xul ee u gudba wareegga saddexaad ayaa loo sameyn doonaa isku aad minan iyo marti ah ama home iyo away ah. 5 xul ee badisa ayaana si toos ah ugu soo bixi doona koobka adduunka ee lagu qabanaya dalka Qatar sanadka 2022.